السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادة برنامج كعيارها وحنا نكويجينا قضبة كلاه ciyaartoyga la yiraahdo Douglas Rice oo ay ku guuleysatay inay iibsato kooxda Arsenal kadib markii ay loon adag la gashay kooxda Man City iyo sidoo kale Arsenal oo rabta in ay iska dhisto khadka dhexe ama midfield-ka isla markaana samaysato qorshe plan B ah oo haddii uu dhaawac soo gaaro ciyaartoygooda bedelkooda la helo. qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa haatanna iyagoo faahfaahsan aan idin soo gudbino. aan ku bilownay kooxda Arsenal ayaa ku guuleysatay inay soo gadato ciyaartoyga ka ciyaara khadka dhexe ee magaciisa la yiraahdo Douglas Rice kadib markii ay tartan suuq oo furan ay la geliyay. laacibkan oo iska iibisay kooxda uu horey uula joogay West Ham ninka lagu magacaabo Douglas Rice ayaa isaga ugu dambeyntii la kala dooransiiyay kooxdii uu ku biiri lahaa kadib markii ay isla ekaadeen qiimaha kama dambaysta ah Arsenal iyo Man City ay markaasi u gaareen ciyaartoyga qiimihiisa rasmiga ah waxayna gaareen $100 milyan oo pound ayaa ay labada kooxoodba ay ugu dambeys sicirkiisa u gaareen. Arsenal ayaa beeceedii ugu horeysay ahaa in $70 milyan oo pound laga siiyo ciyaartoygan Douglas Rice waxaana laga diiday arrinkaasi isku soo noqod dambe oo mulkiilayaasha kooxda iibinaysa ee West Ham ay gaareen ayaa markaasi Arsenal ay haddana u sheegeen inaynan qiimaha siisanaynin balse Arsenal ayaa go'aansatay inay 80 milyan ay siisato balse kooxda Man City ayaa iyadu mar kaliya suuqii sixirka laacibkan Douglas kor u qaaday waxaana ku iibsadeen 100 milyan oo pound halka markii ay mareysay halkaas kooxda Arsenalna ayayna u gaartay isla qiimahaasi 100 milyan ah. haddaba arrintaasi waxa ay dhalisay in ay isla ekaadaan labada kooxood ee Man City iyo Arsenal inay qiimo isku mid ah gaareen ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxdaasi West Ham Douglas Rice taasna waxaa kooxdii uu ciyaarayay aaraahda West Ham ay kala dooransiisay laacibkan kooxda uu isagu uu daneynayo inuu ku biiro